النعمة وكفيه وحول إنما أوتيته على علم وأقول أن لا أقول علم الكيمياء جي أحلو يقال إلى ليلو أقول أن لا يهيبان كنكوها لا يوحك لا شيء جمو وإذا كنا أقولتي إن استعماله أدونك إلى هاي إنسان كوسيي وإن أنا كب خيلنا أنا كو أبيجين لكن وإن إلى هاي كعبدا قفت كب خيلنا محول كل مياه الله يجي قالوا إلى هاي وحول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم هو كب خيل يوحي إلى هاي ودي ويا لين عليك يلا حتى على حمل أصير خير يعني لكن بلايك لا كل بالدوران وحين كنت الماضي إلى أما موقف في الإسلام كوكت عليها وياي أنه سلاح ذو حدين وسياس أما هو لبعض له إن خير كلنا الله استعمال كره إن شر كلنا الله استعمال كره المال يكون خيرا في يد الأخيار والشر في يد الأشرار مركه وقفك خير كلك عنك تكتره وخير ومن لو بيستوي مساجد كائن كتر نوكا ومن لو عمل أيه دكسية ذي معهد إسلامية ومن لو سمعنا يا أوقاف أي مساكين تقلع ومن لو صار لي كيشش يرهاشين فرضنا بالشدة الله قيبيه ومن لو سمعنا يا وقف والدك واستعماله أما وقف أنت وقفت في سمايته بيصير إياه خير شوكتها يوقف صاحبه marka kolka uu ku jiro qof khayr leh gacantiisa waxa weeyaan mid aadi ya Allah ma jeerto sidoo nabigu ba tilmaamay alayhi salatu wassalam Uthman ibn Affan uu ka jawaabay markuu nabigu codki soo jeediyay intuu mid barka u fulay asxaab isagoo jihaadka ku dhiirigelinaya war wax bixiya aad buu dhiiriyay markii uu Uthman ku celiyay wax fara badan oo aad u badan keenay nabiga haali galiyay ولد واسو فرحيه وحول عثمان ما انت وحي كدنبيه وحو دنب سمايا دبي ضما يبا الى هي انت وكغفليه وكغدع كلمه موجسها قران او حكمه بدن ايو نبي كتلمامي عليه الصلاه والسلام مالك marka uu ku jiro qofka wanaagsan gacantii waxa uu ni'ma al-mal salih lirajul salih hadith sahih maalka wanaagsan waxa fiican uu maal wanaagsan oo xalaal oo qof wanaagsan gacantiisa ku jira maal xaraam oo wanaagsan iyo qof wanaagsan marka ay helaan waa wax la majeerto oo la ilaahay oo taajir hebel sidii soo kale yaa ka dhiga adiguna aad isticmaasho sidaa fiican ay isagu isticmaalayeen ninkii qaaruun la oran jiray markii uu adduunkiisa dhawalba iska dhigay suurada ilaahay wuxuu ku tilmaamay suuratul qasas in xoolaha la siiyay furayaashiisu ay cusleynayeen in badan oo ama gaadiida ama dadkii xambaari lahaa ana furayaashiisa la qaadi kari laayay wuxuu dabadna sameeyay isagoo tabaxturayo macnaa isqaadqaadaya oo addoomihiisii iyo fardihiisii iyo xariirtu gashanaa iyo wixii isaga wada oo dadka saa u dhexmaraya ayaa waxaa la hadlay culimadii wanaagsanaa aragtida fiican ka aaminsanaa maalka way waaninayaan ولكن القرآن كله سو قدبنا كلمة حلقة أي مركا كولا هذا أصير إنه آمنين مالك إلا الله نقمه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين waxa ilayhi waa kibri ilaahay ma jeclako maalka ku kibreen farax halkan ayada sheegtay waa kibri ha ku kibrin ma waxa ilaahay uu ku sii aakhiro ku baadi doon oo waxa ka dhigtaa wax aad aakhiro ugu beerato oo ilaahay jannada kaga iibsata ka dhigo wala tansa nasiibaka min ad-dunya ay iska shaqayso adiga adduunyadaadii ka shaqaysanaya aakhiro waxa ka dhigataa waxa ku beerato wala tabqi al-fasada fi al-ard maalka ku fatahaadin dadka talada ay siiyeen waa mowqifka islaamkuna ka taagay maalkii la shaqaysto la soo saaro laakiin ilaahay jannada laga iibsado ilaahay wuxuu inna allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna ilaahay wuxuu ka iibsaday dadka mu'miniinta ah naftooda iyo maalkooda jannada leeyahay qaybtiisa wuxuu isticmaalayay ilaahay wuxuu fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun maalka waxay kula dagaalamayaan dadka muslimiinta ah waliga arkayo maanta wax fara badan waxa dagaalku dhacaya waa dagaal dhaqaale siyaasadda dhaqaalaha ka hogaaminaya waxa loo ordaya asaakir hubka kala duwan loo sameeyay waa dhaqaalaha waxa loo xiimaya waa
tamarta iyo shidaalka iyo dhaqaalaha iyo biyaha taasaa loo ordayaa waxa awoodda faraha badan umadaha loogu burburinayaana waa sidii loo heli lahaa adduun wax lagu adoonsado maalku waa inaanu ka mashquulinin qofka cibaadada laakiin marka uu qofku cibaadadiisii gudanayo camalkii saalixa ilaahay uu ku adeecayo kana wuxuu ka mid noqonayaa waxa ilaahay uu ku adeecayo asxaabta waxay loognahay ridwaanullaahi calayhim qolihii fuqarada ahaa aan waxba haysanin walaalahoodii maalqabeenka ahaa marka ay eegeen cabduraxmaan ibn cawf iyo abubakar sidiiq iyo cusmaan bin cafaan aad bay ula dhaceen ilaa nabiga wacawdeena waxay yidhahdeen yaa rasuul allahi dahaba ahlu dutuuri lujuur nabi allow dadkii maalka lahaa dee wixii ajri ahaayoo dhan iyagaa la tegey way naga badiyeen xagga ajriga markaasuu nabigu uhi maxaa dhacay dee waxay yidhahdeen saan u tukanaabay u tukanayaan saan u soonaabay u soomayaan cibaadooyinkii kale oo dhan bay samaysanayaan ayay falayaan wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim xoolahooda inta dheeraadka ama way sadaqaynayaan nabigu waa kii uu sheegay calayhi salaatu wasalaam digrigan aynu akrino salaadaha dabadooda 330 jeer oo subxaan allah 330 jeer alxamdulilah 330 jeer allahu akbar markii intaa uu sheegay iyaguna way maqleen nimankii maalqabeenka way maqleen iyana way ku yeedhiyeen oo dee lagaba xigeen way akhriyeen nabiga u saacooday calayhi salaatu wasalaam markaasay yidhahaan walaalahayo dee intii way akhriyeen iyana nabigu jawaab kale uu siiyaa ma jirta waxa uu ku yidhi dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa waa dheeraad ilaahay oo kaas waxa uu siiyaa cidda u doono halkaa waxa laga faa'idaysanayaa bay leeyihin culimadu alghaniyu saabir aw alghaniyu shaakir khayrun min alfaqiiri saabir qofka faqiirka faqrigiisa ku sabraya fadli badan miska qofka maalqabeenka ah ee ilaahay ugu mahadnaqaya maalka ee sidii ilaahay uu u bixi ama u maamulaya si kale haddaynu u dhigno maqaniga isaguna saabirka ah ila qaninimadu waxay u baahan tahay iyada laftigeedu sabir qofku markuu maal gacanta ku hayo sabir buu u baahan yahay weliba culimadu waxay yidhaahdeen qofka maalka gacanta ku haya sabirka laga doonayo ayaa ka sii weyn faqiirka sabirka laga doonayo faqiirku waa ilaahay markuu wixii uu hayo ku yaraado wuxuu leeyahay ilaaha wadaa qadaray dabadna uu iska fadhiisanaya laakiin kan sabirka looga baahan yahay waxa weeye xiinaanu ku kabrin xiinaanu ku tumanin xiinaanu xaraan isticmaalin xiinaanu dadka ku karbaashin sabirka looga baahan yahay qanigaaba ka sii weyn bay dhahan sabirka looga baahan yahay faqiir waxa quraanka kariimka ilaahay ku amaanay dadka maalka gacanta ku haya waliba qaybtiisa hawsha badan tijaarada ee baayac mushtariga ana tijaarada marka la yiraahdo qofka waxa badan haya qofka waxa yar haya labaduba taajirun baa la yiraahdaa hadii wax rogay si gaarada ilaahay waa amaanay masaajidadu ka soo warramay iyo nuurka ka baxaya iyo iimaanka in masjidka laga sahay qaato dadkii kale oo dhan ma sheegina wuxuu sheegay cidda maalka gacanta ku haysa ee isku wada cuudka iyo cibaadada cuudkii oo xoolaha haystaan iyo cibaadada ilaahay oo iyadana masjidka ay ku gudanayaan markaas ilaahay wuxuu yusabbihu lahu fiiha بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية وحكون عبادة